بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم داوديال مeel kasta oo naga daawanaysaan dunida dacaladeeda. halkani waa telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland oo idin kala hadlaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Kismaayo kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka xidhiga naga soo gaaray. qodobada aan warka idin ku hayana waxa kamid ah wasiirada xilka wareejiyay iyo wasiirada lagu wareejiyay iyo kuwa sharafta leh ka soo qayb galay goobjoogka ah wasiirada iyo wasiir ku xigeenada iyo waa munaasabad ay xililka kula wareegayeen wasiirada cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ganacsiga Jubbaland oo uu ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dawlad goboleedka Jubbaland. halkani waa magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday shirka madasha wada tashiga qaran. maanta ayaa la soo gabagabeeyay warmurtiyeed ayaana laga soo saaray. waxaa kaloo rabay inaan aad ugu mahadceliyo reer Baydhabo iyo reer koonfur galbeed dawlad iyo shacabba gaar ahaan dadka reer Baydhabo deganaa soo dhaweynta iyo qalbiga furan iyo si fiican inoo soo dhaweeyeen. waa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo wafdi uu hogaaminayo oo galabta soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland kadib maalmo ay safar ugu maqnaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo ay kaga soo qayb galeen shirka madasha wada tashiga qaran. kuwani waa ururka dhalinyarada Jubbaland oo qalab ciyaareed ku wareejinaya xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland. halkani waa garoonka kubadda cagta ee Wama Stadium ee magaalada Kismaayo. ciyaar xiiso badan ayaa waxa ay ku dhex martay xulalka kubadda cagta ee Jamaama iyo magaalada Kismaayo. waxaad ogsoontihiin in maalmihii xurriyadda ay bilaabanayaan ba isla caawa haddii Ilaahay yiraahdo maadaama ay bilaabanayaan amnigu qorshe badan oo amni ayaa jiro. wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay qorshe u dejisay sugista ammaanka goobaha ay ka dhacayaan xuska maalmaha xurriyadda dalka. daawadayaal wararka dalkeena dibaddiisa aan idinka hayana waxaa ka mid ah ismaamul goboleedyada Scotland iyo North Ireland ayaa waxa ay qorsheynayaan in ay ka go'aan wadanka Britain. dhanka kalena madaxweynaha dalka Equatorial Guinea ayaa waxa uu madaxweyne ku xigeen u magacaabay wiilkiisa arintaasi oo si weyn loo hadal hayo. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan goor dhaw idin faahfaahin doonaa marka hore qadar kooban oo adeega bulshada.